nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam fi ljannati 8 abwaab jannadu waxay leedahay 8 albaab waa darajaad waa iskor yaalaan waxaa ka mida buu lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam baab la yidhaahdo yusamaa alrayaan la yidhaahdo laa yadkhuluhu ila asaa'imuun dadka saa'imiinta umaa ka gala buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waa la yimid albaabkii baa la wala hor joogaa albaabadu jannadu way waaweyn yihiin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay labada fardadood ee albaabka qaarkood inay isku jiraan 40 caaman 40 sano in loo socday isku jiraan qaar kale nebigu wuxuu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam waxaa loo socdaa 70 caaman 70 sano in loo socdo ayay isku jiraan laakiin nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wala ya'tiyanna calayhi yowmun wa innahu lakadiib waxaa imani maalin albaabadaasi ay buuq yihiin oo zixaam u jiro oo la buuxo ayaa la iman buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam mu'miniintii xaggaasa isa soo taageen kuwii alla ka cabsanayay oo dhan baa xaggaa isa soo taagay alla wanaagsanaa meeshaas nebigii baad arkaysaa abubakar sadiiq baad arkaysaa cumar baad arkaysaa waa kaasaa lagu leeyahay nebigii nebi ibraahim nebi muuse ambiyaadii oo dhan khalqigii khayru khalqillaah oo dhan baa meesha tuulan maxaad u malay mowqifkaas maxaa ka wanaagsan waa urtii jannada nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa ina riixahaa la yuujadu min masiirati 70 caaman uduga jannada carafta jannada udgoonka jannada waxaa laga helaa buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam in 70 sano loo socdo ayay urteedu kaa soo gaadhaysaa mu'miniintii way hortaagan yihiin jannadii baa u urays wanaaggii bay arkayaan nebi maxamed baa imanaya sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi aatii waan imani baaba aljanna fa astaftix hallayga furaan oran waan garaaci fayaquulu alkhaasin man yaa lay oran wa ayo ka garaacaya فأقول محمد والنبي محمد بن أوران فيقول ملقي وحو أوراني بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك أذيك لي أمر إن كاه فرق أذا أقوه قال يتشند النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي وحو يري نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ذها أنك أقدم بينه أنك أنا قيامها أقوه قال يتشند ونحن أول من يدخل الجنة رواه مسلم مؤمنين توي مادين الباب ذي الجنة أيا لفري بوق با كتشيرا ولا حاضرين يا مد قارب الباب لقى حاضرين يا صائمين تيميل بالوغا يريا مجاهدين تيميل بالوغا يريا أبو بكر باير النبي الله قف سديد الباب أو الجنة لقى حاضرين يا الله يريا مجيرا نبي وحور وحرجين يا إن أدوك من نقطة أبو بكر رضي الله عنه حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ملائكتي بسود وينس ملائكتي بكورن السواد وناك سنتين ليبان بإني سجن خير بدن بإني سجن سلام عليكم سود وادا طبتم ودوناك سنتين فادخلوها قال جنة خالدين إنك أكوا